calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo arbaca soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya wararka aan ka helayno magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay sheegayaan in caawa uu ka dhacay qarax ay ku geeriyoodeen ilaa 3 qof oo la socotay mooto bajaaj goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qaraxaasi uu ka dhacay dhabarka dambe ee hotel Ambas oo ku yaala xaafadda wadajir ee koonfurta magaalada Gaalkacyo sida aan xogta ku helayno qaraxan ayaa dhacay xilli ay mootadu mareysay wado aad u cariiri ah oo marta dhabarka dambe ee hotelkan waxayna warar hordhac ah ay sheegayaan in qaraxaasi ay wateen ragga ku dhintay ee saarnaa mooto bajaajka hay-adaha ammaanka koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa warbaahintu u xaqiijiyay in qof kale aysan wax yeelo ka soo gaarin qaraxaasi isla markaasna la aaminsan yahay in nooca qaraxaasi uu ahaa jaakado qaraxa oo ay wateen ragga ku dhintay ee saarnaa mooto bajaajka isla markaasna aanan la ogeyn bartilmaamoodkooda saxda ahi si kastaba ha ahaatee dadkani ayaa qaraxyada isku soo xiray isla markaasna mootada saarnaa waxaana macquul ahayd inay u socdeen saldhigyada magaaladaasi dhinaca kale wakiilada beesha caalamka oo qodobo muhiim ahi maanta kala hadlay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho kulankani ayaa waxa looga hadlayay dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka oo dhawaan loo igmaday ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa sidoo kale si qoto dheer uga wada hadlay u diyaar garowga shirka golaha wada tashiga qaran ee uu ra'iisul wasaaraha iclaamiyay inuu magaalada Muqdisho ka furmayo 20 bishan aynu ku jirno ee May wakiilada beesha caalamka ayaa mar kale taageero ballaaran u muujiyay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo la wareegay arrimaha doorashooyinka iyo amnigeeda iyagoona ballan qaaday garabsiinta geedi socodka doorashooyinka dalka waxa ra'iisul wasaaraha ku wehliyay kulanka wakiilada beesha caalamka xubno ka tirsan xukuumaddiisa xilgaarsiinta ma ahan markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha kulan la qaato wakiilada beesha caalamka tan iyo markii lagu wareejiyay doorashada hase yeeshee waxa uu kulankaasi ku soo aadaya xilli ay hal maalin ka harsan tahay qabsoomidda shirweynaha doorashooyinka ee uu iclaamiyay Roble si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa Roble tiri garabkaaga ayaan istaaganahay ee dhexdhexaad ka noqo arrimaha doorashooyinka dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish oo dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo buundooyinka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish ayaa maanta dhagax dhigay dib u dhis lagu sameynayo buundooyinka ku yaala degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab ee gobolka Banaadir dhagax dhigani oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka Banaadir iyo bangiga My Bank ayaa maanta waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda bangiga My Bank duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisa ay aad u soo dhaweynayaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa horumarka caasimadda iyo dib u dhiska waxa uuna ku amaanay bangiga My Bank dadaalada ay ku bixinayaan dhismaha buundooyinka mara degmooyinka Waaberi iyo Xamar Jajab ugu dambeyntii duqa magaalada Muqdisho ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan bilicda goobaha dib u dhiska lagu sameynayo si loo wada ilaashado waxyaabaha danta guud ah ee ummadda ka wada dhaxeeyo ayuu yiri Cumar Finish fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa afka furtay kana hadlay dabaaldega maanta ee Somaliland faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar jidgal ah oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya xilli ay mariyeen deegaanka Warmaxan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee koonfurta Soomaaliya weerarka oo ay fuliyeen dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa waxa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac Al-Shabaab ayaa sheegay inay weerarkani ku dishay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kalena ay qabsadeen saanad ciidan sida ay hadalka u dhigeen wali ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo la xiriirta weerarkaasi ee ay guulaha ka sheeganayaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan degan waxaana ciidamada dawladda ee la weeraray lagu soo waramayaa inay sii wateen socdaalkoodii isla markaasina meydkooda hor u qaateen inta badan Al-Shabaab ayaa weerar ku dhufo ka dhaqaaq ahi ku qaada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM xilliyada isaga kala gooshayaan gobolada dalka si kastaba ha ahaatee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wali ma aysan ka hadlin dhibaatadii halkaasi ka soo gaartay dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si lama filaan ah hambalyo ugu diray reer Somaliland oo maanta u dabaaldegaya
18 May oo ah maalintii ay ku dhawaaqeen madax banaanida ay ka go'een Soomaaliya inteeda kale ee aan wali aqoonsi helin. Sheekh Shariif ayaa reer Somaliland ku bogaadiyay nabadda iyo xasiloonida siyaasadeed ee ay dhidibada u taageen muddada 30 sano ahay. Waxaan hambalyo u dirayaa walaalaha Somaliland oo xusaya 18 May meel kasta oo caalamka ay ka joogaan, anigoo ugu tahniyeynaya nabadda xasiloonida siyaasadeed iyo hirgelinta nidaamka dimuqraadiyad qof iyo cod ahi ee ay ku guuleysteen, ayuu yiri musharax Sheekh Shariif Sheekh Axmed. waxa uu hoosta ka xariiqay in qadiyadda Somaliland iyo xaalkeeda uu yahay arrin masiiriya isla markaasina ay muhiim u tahay dib u yegleelida dowladnimo lagu wada kalsoon yahay oo Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in lala fariisto hoggaanka Somaliland oo matalaya bulshadooda si looga qanciyo 30 sano ka hor dhibaatadii gaartay, iyada oo laga garaabayo arrintaasi. waxay tusaale wanaagsan u noqonaysaa muddo 30 sano ahi Soomaalida inteeda kale iyagoo ku guuleystay sugidda amniga, horumarka bulshada iyo in dadku ay doorasho galaan ayagoo xulanaya cidda hogaaminaysa. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu dambeyntii si weyn ugu ammaanay Somaliland hanaanka doorashooyinka qof iyo cod ahi oo ka hirgelay deegaanada Somaliland iyada oo shacabku doortaan qof walba oo ay doonayaan. si kastaba Somaliland ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegtay xilligii ay ku dhawaaqeen madax banaanida ay ku doodaan inay Soomaali ka go'een, waxayna 30 sano dunida inteeda kale ka baadigoobayeen aqoonsi caalami ah. dhinaca kale maxkamadda qalabka sida ayaa go'aan rasmi ah ka soo saartay kiiskii dilkii loo geystay Allah u naxariistay gudoomiyihii maamulka degmada Hodan ee gobolka Banaadir marxuum Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon. maxkamadda ciidamada ayaa maanta oo Talaado ah ku dhawaaqday xukunka lagu riday eedeysanayaasha kiiskan oo loo haystay ilaa 6 askari oo uu ku jiro taliyihii hore ee saldhigga booliiska degmada howlwadaag ee gobolka Banaadir Shucayb Cabdi Maxamed. sidoo kale maxkamadeynta raggaani ayaa soo martay heerarka kala duwan, waxaana horay xeer ilaalinta maxkamadda u sheegtay in dilka Dhagajoon uu ahaa mid si ulakac ahi loo geystay, kuna ogaadeen baarista la sameeyey iyo warbixinada guddiga loo saaray dhacdadaasi. ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute oo ku dhawaaqay go'aanka maxkamadeynta ayaa sheegay in taliyihii hore ee booliiska degmada howlwadaag Kaashaanle Shucayb Cabdi Maxamed lagu riday xukun 5 sano ahi oo xabsi ciidan ah, halka sidoo kale dable booliis Bishaar Axmed Cabdi lagu xukumay 5 sano, kaas oo haatan baxsad ah ayna ku raad joogaan saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya. sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ayaa sheegay in min 2 sano xabsi ciidan ahi lagu xukumay eedeysanayaasha kala ah Jamaal Isaaq Cali Dhiblaawe, Ibraahim Yuusuf Faarax, Sabriye Afrax iyo Kulmiye Kaariye Cali, kuwaas oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya. waxaa sidoo kale u sii dheer in ay bixiyaan magdhow diyo ah marxuum Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajoon, Ibraahim Abuukar Cismaan iyo Liibaan Xasan Liibaan oo rasaasta lagu furay uu dhaawac ka soo gaaray. Allah u naxariistay marxuum Cabdixakiim Dhagajoon ayaa xilli habeen ahi gaar ahaan 21 Janaayo ee sanadkan 2021 lagu dilay isgoyska howlwadaag ee magaalada Muqdisho saacado kadib markii uu ka soo laabtay dalka Turkiga oo caafimaad ahaan u joogay. dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon, warar degdeg ah. fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. mahadsanid.